habeen waxaan wanaagsan mar labaad baan soo dhaweynayaa kasoo qaybgalayaasha bandhigga caawa ee buuggan dhaqaalihii jamhuuriyadda Soomaaliyeed markooda waxaan u mahadnaqayaa qoraalka buuggan waan bogaadinayaa oo ku baarigayaa hawsha weyn oo qabtay oo runtii ah wax soo saar qiimo leh oo akaadimsha oo research waqti badan qaatay daraasado badan loo soo aqriyay qoraalka waxaan leeyahay oo guuriyo hawl weyn baa qabatay maktabadda Soomaaliyeed baa bishay aqoonta Soomaaliyeed baa kobceeda iyo kor u qaadideeda ka qayb qaadatay aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa wax soo saarka iyo dadaalka aad samaysay ka shirkada hilbaris ahaan oo buuggan daabacday runtii farxad bay noo tahay inaan buugaag saas oo kale mid weyn oo miisaaman ugu soo kordhino saaxadda akhriska iyo maktabadaha Soomaalida oo aan ka qayb qaadano kacdoonka fikriga ah iyo wacyiga ah ee bulshada lagu horbinayo ama lagu horumarinayo garaadkeeda iyo ogaalkeeda farxad gooniyo way noo tahay inaan ka wada shaqeyno khadar buuggiisa labaad sidoo kale waxaan hilbaris waa madbacad sanad gudaheeda afraad bishan joog u dabaaldegaysa waxay soo ka qayb qaadataa hodminta iyo horumarinta afka waxay garab istaagtaa qoraayada oo ay gacan qabataa qoraayada ku cusub qoraalka sidoo kale waxay dadaal ku bixisaa sidii u horumarin lahaayeen maktabadaha naadiyada akhriska iyo ka qaybgal kasta oo bulsheed oo kor u qaadaya ogaalka iyo aqoonta bulsheed aad baan ugu faraxsanahay mudanayaaliyiin sida ugu soo qayb gashay nolosheenan caawa ee bandhigga buuggan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan oo ka wada bogan doontaan hilbaris waxay wadaa mashruuc ay u bixisay hiil turjumaad waa mashruuc isna qayb weyn ka ah horumarka ay hilbaris la doonayso bulshada Soomaaliyeed oo dhan inay gaarsiiso oo la doonayo aqoonta afafka qalaad ku qoran kala duwan ee kala kategoriga dadka kafaneed tahay dhaqaale tahay haday siyaasad tahay iyo haday cilmi baarista kala tahayba inay soo turjumo oo afkeena loo soo guuriyo si ay uga faa'iidaysto bulshada sidoo kale hilbaris waxay leedahay ama wadaaba barnaamij caruureed buug caruureeda oo iyagana dhallaanka bulshada Soomaaliyeed ogaalkooda iyagana laga soo bilaabo halkaas oo laga soo dhiso si guud wadasha caawa markaa maslaxad ugu soo dhaweynaya qoraalka waan baarigaya aad iyo aad u mahadsantihiin sida fiican ugu soo qayb gashay aad iyo aad u mahadsanyihiin jaamac iminkana waxaan kelmad siin doonaa qoraalka buugga balse intaanan u yeedhin khadar aan wax yar idinka sheego khadar intuu yahay buuggan maaha buuggii koowaad oo wada qoro buuggiisa hore waa dhammaan bilowgii buuggii wadahadalladii Somaliland iyo Soomaaliya buuggaas oo ka dhashay shahaadadiisii masterka labaad baxdigii iyo aqoon-baariskii uu sameeyey khadar jaamacadda Hargeysa ayuu shahaadadiisii koowaad cilmiga dhaqaalaha ka bartay shahaadadiisii labaad masterka ee koowaad wuxuu yadan ka dhigtay dalka Bangladesh magaalada Dhaka gaar ahaan jaamacadda North South University dalka Turkiga ayuu sidoo kale ka qaatay shahaado labaad oo master ah oo ku saabsan cilmiga siyaasadda iyo international relationska khadar aan ku soo dhaweeyo iminka si uu buuggan inooga warramo iyo welibana wuxuu ku saabsan yahay fikir guud inooga siiyo sababta uu qoray khadar soo dhaweeyo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan dhammaantiin idinku mahadnaqayaa kasoo qaybgalkiina iyo sidaad noo soo sharafteen aad noogala soo qayb gasheen bandhigga buuggan dhaqaalihii jamhuuriyadda Soomaaliyeed waxaan isku dayayaa inaan barnaamijka ubuucdiisa u daayo akhyaarta soo akhriday buugga oo runtii si qoto dheer u falanqayn doona buugga waxaanse anigu isku dayi doonaa inaan ka bixiyo sawir guud buuggu iyo waxaad ka rajayn doontaan iyo waxaad ugu dhex tegi doontaan iyo sidoo kale inaan waxoogaa ka hadlo ama aan ka idhaahdo ujeeddooyinka buugga aan u qoray iyo wax ka mida findingska ama maxaan dhahdaye waxyaabaha buug cilmi baarista uu ku ogaaday ee ugu muhiimsan ama ugu waaweyn haddaan si guud u bixiyo buugga wuxuu ka hadlayaa runtii 30 sannadood ee inta badan ay jamhuuriyaddii Soomaaliyeed jirtay ama ay shaqaynaysay
oo ahayd markaa jamhuuriyadda ay Somaliland iyo Soomaaliyaba ku wada jireen oo qayb ka wada ahaayeen 60kii oo ah xilligii Israacu dhacay ilaa iyo 1990kii oo ay jamhuuriyaddaas burburtay markaa si gaar ah sababtaan ugu eegay waxa weeye runtii 30 sano waxa weeyaan waxaa la odhan karaa waa 30 sano ugu muhiimsan taariikhda Soomaalida waayo waa 30 sano ay Soomaalidu aragtay dawlad taabagala oo la odhan karo yani waa qarankii ay ku taamaysay inay hesho maxaan dhahdaay ama ay dhisato marka ay gobonimada qaadato ikastoo waad buuga ugu tagi doontaan in runtii de jamhuuriyadda sidii la rabay aanay maxaan dhahdaay bulshada ugu adeegin ama aanay dad ka helin noloshii ay ugu jeclaan lahaayeen inay ka helaan qarankooda ama dawladooda marka buugu waxa uu si guud u eegayaa oo isku dayayaa inuu sawir dhammaystiran ka bixiyo dhaqaalihii qaranka Soomaaliyeed 30 sano waxa uu markaa isku dayayaa inuu dhinac walba iska taago wuxuu ku bilaabmayaa chapterka koowaad inuu eego wax soo saarkii waddanka gudaha uu soo saari jiray oo runtii uu sectors badan ka hadli doono sectorska uu eegi doono waxa ka mid ah wax soo saarka beeraha xoolaha kalluumaysiga warshadaha oo runtii intii nidaamka hanti wadaaggu uu jiray uu dalku warshado badan yeeshay oo si faahfaahsan ugu tagi doontaan buugga dhexdiisa warshadahaas iyo dhaqaalaha waxay ku soo kordhiyeen iyo wixii ay culays dhaqaale keeneen tusaale ahaan cutubka labaadna wuxuu buugga eegi doonaa si guud xiriirka uu dhaqaale ee uu waddanku la lahaa dunida inteeda kale wixii uu dhoofin jiray wuxuu soo dejin jiray dalalka trade partnerska la ahaa ee ay wax maxaan dhahdaay isweydaarsan jireen iyo waxyaabaha la mida kadib cutubyada ku xiga waxa ka hadli doonaan dhowr mawduuc oo runtii aad muhiim u ah oo ay ka mid yihiin tusaale ahaan gargaarka shisheeye ee ay jamhuuriyaddu ka heli jirtay dunida inteeda kale iyo intayn leeg bay ku tiirsanayd mucaawino ama gargaar ay dawladaha shisheeye ka hesho deynta oo ilaa maanta aad maqashaan in maxaan dhahdaay deyn cafin waxa la yidhahdo maqashaan oo inta badankeyga deyntaana la qaatay 30 sano gudihiisa inuu isagana si kooban uga hadlo cutubka aan isla ka mid yahay cutubyada ugu muhiimsan buuggu waa cutubka si gaara u baaraya ama uga hadlaya nidaamkii hanti wadaagga maxaan dhahdaay waddanku qaatay 1970kii markii dambena uu maxaan dhahdaay u bayray xagga suuqa xorta iyo nidaamka antigoosiga iyo ugu dambeyn bal inaynu dul istaagno nidaamkan siyaasadda maaliyadeed nidaamka lacageed iyo lacagta waddanku isticmaali jiray iyo waxyaabaha la mida waa qaybta monetary policy-ga ee dhaqaalaha si kooban isku dul taagi doonta runtii marka haddaan sawir guud runtii aan intaa ku soo yar ururiyo buuggu si kooban sidaasuu maxaan dhahdaay uu u soo koobayaa dhaqaalihii waddanka dhowr qodob baan rabaa markaa inaan ku daro qodobka koowaad sababta ugu weyn ee buuggan u qoray baan rabaa inaan ka yar hadlo aqoontu sideedaba aqoontu nolosha bini aadanka waa muhiim aqoontu waa wixii ay bulshadu kororsato oo ay noloshooda ku hagaajisato ama ay ku qurxisato aqoonta aynu jaamacadaha ku baranno iyo cilmiga waxaynu u barannaa inaynu nolosheenna ku qurxinno oo aynu nolosheenna ku hagaajinno aynu kor ugu qaadno laakiin waxaa jirta mushkilad ah in aqoonaha qaar aynu baranno uu ka mid yahay aqoonta dhaqaaluhu ay ka mid tahay inaanay ahayn mid waaqic aynu ku noolahay ka turjunta inta badan oo yacni dhulkan inagu aynu ku noolahay ama Somaliland ha noqoto ama dhanka Soomaaliyaba ha noqoto nidaam dhaqaale oo dhisan oo si effective u shaqeeya ma jiro marka waxay noqotay in ardayda dhaqaalaha barataa ay barato dhaqaale shisheeye ha u badnaado Maraykan oo de imika jaamacadaha Maraykanka ayaa dunida xagga aqoonta iyo textbookska soo saaristooda hogaamiye tusaale ahaan taas waxay keentay markaa in aqoonta dhaqaale aynu baranno aanay ahayn mid waaqiciina ka turjumaysa oo dabeetana qofkii uu u arkayo dhaqaalihii wax aan noloshiisa xiriir la lahayn maalinlaha amaba u arkayo wax maxaan dhahdaay dawladaha horumaray aqoon dawladaha horumaray iyo nidaamyada dhaqaale fiican leh oo Maraykanku ka mid yahay oo textbookska ugu badan aanu baranno runtii tusaalayaal waa inuu u arko wax uu Maraykan leeyahay tusaale ahaan dhaqaalaha u arko ee aan u arkin wax noloshiisa la xiriira taas marka waxay keentay in aanay aqoontii maxaan dhahdaay dhaqaale aanay wax badan ku kordhin karin dadku maadaama fahamkii dadkii bartay dhaqaalo maadaama fahamku yar yahay marka ujeedooyinka ugu weyn runtii buugaan u qoray waxa ka mid ah inuu tixraac u noqdo ardayda dhaqaalaha barata isla markaana ardayda dhaqaalaha barata ay waaqicooga ku salayn karaan cilmigii dhaqaale ee ay barteen oo ay maxaan dhahdaay ku fahmi karaan buugan qoristiisa runtii waxa igu dhaliyay waan oran karaa ama igu dhiirigeliyay
book uu qoray nin aqoon-yahan Soomaaliyeed oo shahaada PhD-da ka qaatay jaamacad Mareykan oo Johns Hopkins University la yiraahdo buuggaasoo runtii darsayay si gaara waqtigii shuuciyadu ka shaqeynaysay waddanka siyaasadaha dhaqaale ee waddanku qaatay iyo sidii uu maxaan dhahdaa siyaasadahaas ay u fashilmaan markii dambe oo buugga ciwaankiisa waxa weeye From Bad Policy to Chaos in Somalia How an Economy Fell Apart runtii buuggaas argumentkiisa ugu weyn waxa weeye in siyaasadihii dhaqaale khaasatan kuwii hanti wadaaggu ay door muhiima ku lahaayeen burburkii qaranka marka buuggaas runtii dhiirigelinta ugu horeysa ay siiyay inaan buuggan qoro arinta kale in la xuso baahan waxa kamid ah in adigoo mowduuc raba inaad qaab cilmi ah uga qorto in af Soomaali lagu qoro lafteedu waa arin aan sahlanayn af Soomaaligu waa luqad aan runtii cilmi ahaan aan aad loogu horumarin oo erayadan cilmiga ah ee fiil kasta ama wax kasta oo aqoonta la dhigto si gaar ah loogu barto ay runtii ku yar tahay ama ay kooban tahay marka way adag tahay in aad cilmi ku qorto af Soomaaliga oo tusaale ahaan dhaqaalaha weyn naqaana waxa aad loo adeegsadaa erayo cilmiya oo u gaara fiilka dhaqaalaha ee barano ama jargons ama terminologies aad buu adag tahay in af Soomaali la helo marka waxa laga yaabaa in ay wax ka soo noqdaan baa aniga laftaydu kuwa aan adeegsaday oo isku dayay inaan ku turjumo erayada cilmiga ee dhaqaalaha lagu adeegsado sidoo kale waxa iyaduna muhiim ah in maxaan dhahdaa la helo dadaalo buugaag akademiga oo qaab cilmi ah oo qoran oo ardayda u noqon kara reference jaamacadaha barata in af Soomaali lagu qoro waxaasle buugani wuxuu ima furu noqon karaa inuu dhiirigeliyo in buugaag kale oo cilmiya oo fields kala duwan sidoo kale ay isku dayaan dadku inay wax ku qoraan si markaa loo helo buug af Soomaaliya oo laakiin qaab cilmiya maxaan dhahdaa u qoran waxa kale oo buugani muhiim yahay runtii waxa jirta waxaan la yiraahdo in mowduuc kasta in laga eego xagga taariikhda from historical perspective in laga eego waa muhiim wad ogtihiin dunida fiil kasta oo la barto wuxuu leeyahay qayb taariikha in fiilka taariikhdiisa iyo afkaartiisu sidii isku soo bedeshay iyo halka ka soo bilaabantay in la barto marka ardayda cilmiga dhaqaalaha baratay waxay fahmi karaan in la barto course leeyahay History of Economic Thought oo ah in dib tixraac loogu sameeyo taariikhdii cilmigan uu soo maray sidoo kale dal walba wuxuu maxaan dhahdaa ururiyaa taariikhdiisa dhaqaale tiisa siyaasadeed mid kasta marka fiil la aqoon la barto oo ka maaranta in taariikh laga qoro horta ma jirto wad ogtihiin marka la baranayo diinta islaamka tusaale ahaan siirada ama taariikhda in la barto maxaan dhahdaa diinta islaamka iyo taariikhda Nabi Maxamed iyo asxaabtiisu doorka ay ku leedahay in la fahmo ama la darso maxaan dhahdaa diinta islaamka marka saas oo kale muhiim u tahay in mowduuc kasta ama mowduucda qaar in lagu noqdo taariikhdoodii lagu noqdo iyagana taasina waa qayb kale oo buugu runtii uu soo kordhinayo waxaan rabaa inaan u mahadnaqo runtii oo xuso dadaalo qoraal iyo turjumaad oo baryahan dambe dhalinyar badan oo Soomaaliya ay wado oo Hargeysa aan isleeyahay waa meesha lafdhabarta u ah markaad eegto dadka wax turjumay ugu badan ee maanta Hargeysa joogaan qoraayo badan baa Hargeysa jooga buugaag qiimo la soo saara sidoo kale madbacadaha buugaagta soo saara intooda badan oo hiil baras ay hormuud u tahay iyaga laftooda Hargeysa ku beesgareysay marka waxaan karnaa waxa socda bari dhaweyd runtii 10 sano ama 20 sano ka hor waxa la oran jiray af Soomaaligu u dhimanaya sababtuna wax kale ma aha af Soomaaliga waynu ku hadlaynay intii cilmiga ahayd iyo af Soomaaliga luqad ahaan loo horumariyo ayaa meesha ka baxday laakiin waxa isleeyahay arinta waxa beeniyay generation cusub oo soo baxay oo runtii dadaal badan sameeyay oo buugaag qiimo la turjumay Carabi iyo Ingiriisi iyo luqado kale ka soo turjumay sidoo kalena qoray iyaga laftooda u uriyay marka waxaan jecelahay runtii in lagu baraarugo muhiimadda ay leedahay in afku hooyo wax lagu qoro in afku hooyo la kobciyo oo kor loo qaado qofku waa muhiim inuu luqado kala barto waayo maanta cilmiga luqado kale ku qoran yahay Soomaaliga kuma qorna laakiin haddana inuu ka qayb qaato kobcinta iyo korinta afkiisa hooyo iyadna waa arrin runtii aad muhiim ah marka intaasaan hordhaca buugga iyo ujeedooyinkan u qoray kaga baxaya waxaan u soo gundadegayaan soo koobaya runtii inkastoo in badan ay ka oran doonaan qoraayadu qoryaha soo akhriya khiyaar ay ka oran doonaan sodonkaas sano ee aan darsay jamhuuriyaddu ay jirtay ee shaqaynaysay ee taabagalka ahayd
gunaanadka dhaqaalaha wixii soo baxay ayaan rabaa inaan hal iyo laba aan idinka maqashiiyo inta kalena buugga ayaad ugu tegi doontaan tusaale ahaan waad ogtihiin in maadaama Soomaalidu in badan ay ku jirtay ama burbur ama dawlad la'aan ama dawlad daciifaba oo itaal daran ay ku jirtay inta badan dadku waxay dib u maxaan dhahdaayeen hibanayaan intii qarankii naga burburay iyo xulo dumay inta badan dadku ay dib u gocdaan oo dib u magaranaysa iyagu hibanayaan arkaysa marka maxaa dumay ayuu horta buuggu isweydiinaya runtii dhanka dhaqaalaha maxaa inaga dumay nidaam dhaqaalo nooc ma baa inaga dumay oo ay jamhuuriyaddu la duntay sidoo kale dhaqaalaha laftiisa dumay ee bulshada Soomaalida ka baaba'ay ee jamhuuriyaddu duntay raacay muxuu ahaa runtii laba qodob baan rabaa inaan yar isdul taago qodobka koobaad 30 sano ee qaranka Soomaaliyeed ee darseena uu jiray ee ka horeeyay burburkii dagaalada dhaqaalaha Soomaalidu marnaba cagihiisa iskuma taagin mar walba ku tiirsanaa shisheeye ama gargaar ha noqoto ama deyn ha noqoto tusaale ahaan marka waxaad ogaanaysaa oo buugga chapterka tusaale ahaan ka hadlaya gargaarka shisheeye inteen lag waddanku gargaar ku tiirsanaa shisheeye waxaad arki doontaan in maxaan dhahdaayeen ama aad ula yaabi doontaanba heerka ilaa xad uu gaarsiisnaa inuu waddanku ku tiirsanaado gargaar shisheeye mashaariicda waddanku fuliyay ugu waaweyn boqolkiiba 95 iyo wax ka badan waxaad arki doontaan in ama deyn shisheeye lagu maalgeliyay ama lagu maalgeliyay gargaar iyo mucaawino shisheeye marka horta waxaynu leenahay ma jiro dhaqaale 30 sano jiray oo mar kaliya cagihiisa isku taagay oo ka madax banaanaaday dunida inteeda kale taas waa qodobka labaad ee rabeen ka hadlaano waxa weeye nidaamka dhaqaale ujeedada ugu weyn ee dawladdu samaysaa waxa weeye inuu ku filaado dadkiisa maxaan dhahday uu dhaqaalahaas u shaqaynayo halka ugu fudud inuu ka yeegi karnaa waxa weeye waddanku ma gaaray tusaale ahaan isku filaasho cunto waana mushkilad ilaa maanta jirto oo ina haysata runtii Soomaaliya 30 sano marnaba ma gaadhin isku filaasho cunto bal marka daristo waxyaabaha ay dhoofin jirtay iyo waxyaabaha ay soo dejin jirtay isbarbar dhigto waxa ku soo baxaysa in waddanku uu si aad ah oo xad dhaaf ah ugu tiirsanaa waxyaabaha dunida kale uu kala soo dago isagu wuxuu dhoofiyaana ay xadidnaayeen mar walbana tusaale ahaan waddanku 30 sanaba arguments qaar waxa jira buugga runtiisna buugguna uu qayb ka yahay waddanku 30 sanaba wuxuu ku jiray trade deficit ama balance of payments deficit in mar walba waxa waddanka soo galaya ay ka badan yihiin waxa waddanka ka baxaya ama wuxuu waddanku dhoofinaya ama wuxuu waddanku uu dibadda u dirayo arrintaasina waa arrin lagaga qiyaas qaadan karo awoodda dhaqaale ee uu dalku lahaa runtii marka waxa laga yaabaa dadka aan baadhis badan ama akhris badan samayn inay la yaabaan arrimaha qaar buugga ay ku arki doonaan oo ay ka mid tahay yacni in la odhan karaba dee malaha maantuu dhaamay nidaamka dhaqaale ay dad badan isweydiin karaan ayaa dhici karta oo ahayd in maxaan dhahdaayeen la isweydiiyo qodob saddexaad oo cajiib oo tusaale fiican oo noqon kara dunida marka dhaqaalaheega sida u kala sarreeya nidaamka dhaqaale la darsayo inta badan waxa la eegaa waxa la yidhaha per capita income oo ah calaa qof bulshada ama dadweynaha dalka ku nool intee dhaqaale ahaan ku soo hagaagi karta marka loo qaybiyo tacabka guud ee waddanku uu shaqeeyo ama maxaan dhahdaayeen wax soo saarkiisa guud daraasad kasta oo aad aragto iyo report kasta warbixin kasta oo bangiga adduunka IMF-ta oo aad aragto waxa ku xusan oo ku cad in ay Soomaaliya weligeedba ku jirtay dawladaha ugu faqiirsan dunida maantana ay ku jirto rankinka haddaad eegto mar walba waxay ugu jirtaa xagga u hooseysa maxaan dhahdaay xagga faqriga oo ah halka ugu fudud ee laga eegi karo habnololeedka dalka iyo nidaamka dhaqaale waxa uu dalka tarayo ee maxaan dhahdaay tusaale ahaan dhowrka area rabaa inaan idinka taabto laakiin runtii buuggaad ugu tegi doontaan cadaymihii iyo xogtii statisticskii arrimahan aan sheegayo maxaan dhahdaay support gareynayay marka si kooban intaasaan rabay anigu inaan si guud mara idinkula wadaago khiyaarta buuggasi maxaan dhahdaay qoto dheer u gorfayn doonta aad baad runtii ugu mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale cid kasta oo igala shaqaysay buuggani sidii uu soo bixi lahaa waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa madbacadda Hilbras oonu si wanaagsan u wada shaqaynay muddadii aan buugga ka shaqaynayay aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina dhammaantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta maxamed khadar
waa marka koobaad aad iyo aad baan ugu hambaleynayaa buuggan uu qoray nin dhallinyara oo da'diisa ah oo juhdiga intaa la geliyey markaad eegto maraajicda uu akhriyey waa buug u dhigma dadaalkuu geliyey siduu isaguba tilmaamayna markaad eegto in af soomaali lagu qoray oo uu wakhtigaa bixiyey taasina waxay noqonaysaa dhaxal uga tegey inta af soomaaliga ku hadasha iyo aqoonta dhaqaalaha in lagu barto oo lagu akhriyo oo lagu lafaguro af soomaali buugga min jaldi ilaa jaldi waxaad u akhriyaysaa si qurux badan oo aanay ishu ku jabayn oo aad baaragraafba ka kale kuu dhiibayo markaad eegto wakhtiga uu qaatay ee 1960 iyo ilaa 1991kiina waa wakhti muhiim ay tahay in la eego sababaha loo eegayna waxaa ugu muhiimsan maalan 60kii wixii ka horreeyey dowlad Soomaali leedahay oo madax bannaan oo dhisnayd oo dhaqaalaha jaangoynaysa may jirin wixii 1991 ka dambeeyeyna ama 1991 wixii ka dambeeyeyna Soomaaliland madax bannaanidii bay la soo noqotay Soomaaliya weli fowdo iyo dagaal bay ku jirtaa marka in la eegaa taasina waa waqti in fact aad iyo aad u muhiima inta ka sokow aan rabin inaan waqtiga ku dheeraado waan ku waafaqsanahay doodina kama taagna in aanay dhicin marnaba in dhaqaalaha jamhuuriyaddii Soomaalidu uu siduu ha u istaago oo noqdo dhaqaale isku filan cunto isku filan ma inaan soo saarin dhaqaalaheennana nidaamkii shuuciga ahaa ee aynu qaadanay wax badan ayuu kharibay oo uu baabiyey markaad eegto dooda salkeedu waa dood wanaagsan dhaqaale naga dumay iyo dowladda naga duntay oo dhaqaale weyn oo buuran haysamay jirin in fact qofkii ka aragti duwani isagu ay tahay isna inuu maraajicdiisa raadsado doodooda ka duwanna uu soo bandhigo marka anigu shakhsiyan waan ku ammaanaya qodobka waxaan dul istaagayaa hal dhaliil oo uu buuggu leeyahay in fact buugga maaha laakiin gaar ahaan jabtarada bilowga oo aan ka eegayo dhanka markaad eegto dhaqaalaha qofka reer guuraaga waxaad moodaa xaqiiqada qofka reer guuraaga ee Soomaaliga marka maalan aan isku dayno oromadii masaayigii dadkii kale dadka reer guuraaga ee Soomaalida in xoolahan ay dhaqanayaan aad moodo in khadar sidii ay ahayd in loo fahmo in aan u fahmin tusaale ahaan markaad eegto page-ka maalan allahuma salli calaa muxammadin waa page 28 kolle qofkii dood kala qaba uu soo sheegi weydiin ayuu ina weydiinayaa kadib markuu dooda soo dhigo qoraagu weydiin kale waxay isla ayaa reer guuraanimadu ma tahay hab nololeed waxtar leh oo ay tahay in lagu sii dheganaado adeeg su-aasha jawaabteedu waxa weeye anigu qaabka uu uga jawaabay qaab ka duwan ayaan u arkaa inay saxda u dhowdahay waana khaldami kartaa taasoo ah reer guuraanimadu ma aha nolol ay dooranayaan dadka Soomaalidu laakiin waa qaabka keliya gaar ahaan intan Somaliland Ethiopia South Reserve Area dadka ku nool ilaa gobolada dhexe ma aha doorasho ay dooranayaan inay ku sii dheganaadaan iyo inay ka tagaan waa nolol ay ku khasban yihiin reer guuraanimadu sababtoo ah beeraha ayaan suuragal ka ahayn in ay beeraley noqdaan suuragal kama aha oo ecology-kan ku noolahay kuma habboona saas awgeed ma aha iyagu dooq ay gaadhayaan miyaynu ka tagnaa mise waynu sii haysanaa way ku haysanayaan oo waa inay ku sii dheganaadaan oo ay haystaan xoolo dhaqato waa inay sii ahaadaan haddii doonayaan geygan inay ku sii noolaadaan haddii aynu xoolaha ka guurayno ama dadkani ay hayaamayaan oo meelo kala tegayaan miyaynan sheegin laakiin haddii ay dadkani iyagoo Soomaaliya ay dhulkan Ilaahay ku abuuray ay ku sii noolaanayaan xoolo dhaqatadu waa isha ugu muhiimsan xooluhu ay ku noolaan karayaan sababta aan saa u leeyahay waxa weeye nin khadar qudhiisu si fiican u garanayo ayaa jira baybarkiisana aan halkan ku hayo in fact social history of Somaliland ku takhasusay oo jaamac maxamed la yiraahdo
مثلا political ecology of colonial Somaliland ayuu ka warramayaa مثلا aragtiyaha uu markaa soo bandhigayo ama doodaha historically uu soo bandhigayo waxa kow ka ah in Afrika meel kastoo tagto inta equator-ka aan dhicin inay cunto hagaagsan la soo baxaan oo ku filan waxa limiting factor ah oo waliba muhiim ah waa rainfall-ka yani roob ku filan ma helo deegaankan ay Soomaalidu ku nool yihiin oo beero lagu soo saari karo adeeg taa macnaheedu waxa weeye marka dhinac kale ka eegto dawladdii Soomaali u dhalatay 1960kii dhinac dhaqaale ahaan laba dib loo xidhnayd inay doonto deyn dabadeed ama taageerada dabadeed waa miiniska keliya ee ay ku noolaan karaysa marka qodobkaasna aanu isleeyahay cabdiraxmaan ahaan waa dhaliin la sixi karo aniguna sidaan u soo bandhigay aan ku khaldanaan karo aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ugu mahadsan tahay arrintaas discussionkii ayaad mooday inaad inoo furtayba iminkana fursadda siiyo xildhibaan mukhtaar maydhane oo isaguna inala wadaagi doonaa guud markiisa falanqaynta iyo gorfaynta buugga بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ugu horeyn aan u mahadnaqo qoraaga iyo Hill Press iyo inta iskugu keentay halkan runtii markaan si guud uga yar bixiyo faalo guud oo buugga waxaa jirtay waqti madaha imika ku dhow 10 sano ka hor ayaa waxaan akhriyay buug uu leeyahay Lee Kuan Yew uu leeyahay oo ka sheekeynay markaas Singapore siday uga tagtay dunida saddexaad ee ay u tagtay ugu tallaabsatay dunida koobaad baan akhriyay waxa aad cajiib oo aad bariga ii taabtay hadalka uu sida uu u bilaabay buugga ayaa aad ii taabatay oo ahayd in sababta uu u qoray buug ay tahay inay gartaan jiilka dambe halka la soo maray buugaagta taariikhduna runtii waxqabadada ugu waaweyn ay sameeyaan waxa weeye inay ku tusaan wixii aad soo martay waa la xijeclo ayaan isleeyahay halka ugu weyn marar badanna loo sameeyo cid aydaan kulminba aad u samayso markaa qoraaga horta aad baan uga mahadnaqayaa la xijecladaa ka muuqata buuggani meel labaadna gaar buu iga taabto waa shaksi labadan arrimoodbe waxaa jirtay xilligii aanadii nageeye ay soo baxday ayaan ka mid ahaa novelkaa dadkii ugu horreeyey malaha akhrista ayaan ka mid ahaa waxaan marar badan asxaabtayda la wadaagi jiray inuu buuggaasi tusay quruxda uu Soomaaligu yeelan karo isagoon tix ahayn inuu tusay baan ayaan ku sheegi jiray halkanna waxaan arkay quruxda af Soomaaligu yeelan karo marka lagu qorayo qoraallo cilmiyeysan academic paper marka lagu qorayo qoraalada halkan aan ku arkay iyo kuwa af Ingiriisiga aan ku akhristo wax alla waxay ku kala dhacaan horta male waxayna ii ahayd nasiib wanaag in dhaqaale waxuun iga saameeyey noloshayda oo waalidadeen ku soo noolaayeen innagana in inaga midi caruurnimo ay wax kaga soo arkeen boqolka shilin ee halkaa ku sawiro waxaa laga yaabaa in badan oo idinka midi inaanay sooba gaarinba ilaahayse wuxuu ii joojay boqolkaasoo nad arki karin iyo boqolkaasoo xashiish ah labadaba ilaahay wuu tusay oo warqadaan ka dhicin warqadda cad ee halkaa meelaha ku daadatay soo maadaran kamay dhacayn marna boqolkaasoo nad arki karayna ilaahay wuu tusay labadaaba waa markaa in uu arrimaha uu ku saabsan yahayna waxay ii ahayd runtii wax wanaagsan dulucda buugga anigu aad baan ula dhacay runtii qoraaladiisa fikradaha aan is arko meelahan kaga duwanahay ma yihi dhaqaalayahan taana ku darsada xisaabtoo
halkii culimada ee fikradayda aad looma ictimaadi karo halka dhaqaalaha aniguse waxaan aaminsanahay dhaqaalaha iyo dhaqanka iyo xeerarku inay mar walba isa saameeyaan baan aaminsanahay waxaa jira waddamo badan oo dhaqaalahooda dib u habeeyey ayaa jira afrika meelaha ugu caansan waxaa ka mida tanzania oo kale oo dadka khasab ku dejisay dadkii reer guuraaga ahaa dadkii kala duwanaa tuulooyin khasaba samaysay runtii waxay ku kacday dhibaato fara badan bay ka muteen laakiin waa waxyaabaha maanta loo aaneeyo inkastoo la yidhaahdo waa qabyaalad anigu ma aqaano waa qabyaaladee afrika waxa ku wada nool dalalka badankooda dad kala duwan baa ku wada nool ummado kala duwan ayaa ku wada nool oo kala af ahaa marka tanzania waxay u suurto gelisay khasabkii iyo dhibtii ka dhalatay labadiiba waxay u suurto gelisay in maanta dalalka afrika aan inta badan looga baqin qabyaaladda waxay u yaqaanaan laakiin ummadaha kala duwan dhibtooda waa culayska maanta ka taagan dalka aynu jaarka nahay ee etoobiya waa culaysyada ka taagan oo kale inaanay tanzania ka taagnin dhaqaalaha waa la qaabeeyaa xeer baa lagu qaabeeyaa xoog baa lagu qaabeeyaa farsamaa lagu qaabeeyaa meel aan dhaqaalaha la qaabayn ma jiro dalal waa halkaan kaga duwanahay uu iga aqoon badan yahay horta walaalkay guddoomiye ku-xigeenku halka dhaqaalaha markay noqoto laakiin waan kaga duwanahay aragtidaas oo waxaan aaminsanahay reer guuraadnimadu waa sidaan naqaanay inaan ku noolaanno weliba soomaalidu iskuma jirta ee dhinaceennani waa sida aynu naqaanay weeye waana la bedeli karaa waxaan la bedeli karayni ma jiro dhulal inaga qaraxsan oo inaga omos badan oo roobka hela wax aad uga yar waxa aynu helno waxa aynu helno wax aad uga yar hela ayaa haddana dhaqaalahooda bedelay oo dhaqaalahoodu uu ka duwan yahay muuqaal ahaan kii u ahaan jiray marka anigu horta fikirkaa waxaan ka qabaa isaga sidaa buugga waxaan isleeyahay meelaha aanu ka hadal qoraagu ayaan isleeyahay malaha dhaliisha u weyn baa ka iman karta waa maxay meelaha aanu ka hadal qoraagu ee dhaliisha u weynina ka iman karto haddaydun u fiirsataan tusaale ahaan gunaanadka oo kale marka uu durayo qoraagu berisamaadkii inuu jiray iyo in kale dhaqaalaha ayaa waxa uu qaatay halbeegyadiisa qaar ka mida oo tabaca markaa ay dadku soo saaraan marka qof loogu qaybiyo sida ay isku yihiin buu qaatay halbeegaasina dhaliishiisuu leeyahay intii aan ka akhristay koobnay dhaqaalaha dhaliishiisuu leeyahay dad badan oo aan ku noolayn magaalooyin wax la kala gadanayo ayaan calaamadan doolarku macno badan u samaynayn laakiin dhaqaale ahaan ka tanaadsan sida xisaabta dhaqaaluhu u dhigayso markaa halkaasaan anigu is odhan karaa yani waa meelaha ay dhaliishu ku jirto berisamaadka la la'yahay waxaan u arkaayo qayb muhiima ka ah isbeddelka cimiladu buuggii axmed ibraahim buu ahaa baan filayaa inay ku taallay in abaaruhu soo noqnoqonayaan innagu markaa roobka dhibcahan roobka waa inaynu dollar sign dhiganno abaartu markay badato musallafkaa badanaya nolosha dadka ku adkaanaysa ayaa badanaysa dhaqaalaha hore markaa beriga hore dee waxaydun aragtaanba sida uu isku beddelay dhulku inta iska daa wax kale kamaraduyna soo gaadhay intay kamaraduhiina soo gaadhay marka iminka facebookyada lasoo dhigay iyo social media baraha bulshada marka lasoo dhigo waxayduna aragtaan dhulka dhirtii jirtay iyo sida uga sii yaraanayso farqiga maanta u dhaxeeya iyo 20 sano uun ka hor oon waqti dheerba aan runtii ahayn ayaduna arkaysaan marka noloshii baadiyuhu way ka barwaaqaysnayd dhaqaale ahaan way uga roonay dadka tamaanta lagu jiro
marka halkaas waxaan isleeyahay waa berisamaad maqan laakiin magaalooyinka iyo sida wax loogu kala gadanayo ma aha baan isleeyahay gadaal haddii wakhtigu saamaxo waxaan jecelahay inaad ila dhadhamisaan baaragraaf ama tuduc yar oo ka mid ah buugga laakiin waa xagga dambe hadduu wakhtigu ka saamaxaayeen iminkana aan martideeda saddexaad aan mikrofoonka u dhiibo yaasiin calase si isaguna inoola wadaago faalladiisa بسم الله بوك محمد خضر وقري dhaqaalihi jamhuuriyaddii Soomaaliya waxa uu ka kooban yahay 6 cutub iyo lifaaqyo iyo tixraac bajajkiisuna waxa weeyaan 182 page buuganu waa buug si cilmiyeysan u qoran marka loo eego buugaagtii hore ee la qori jiray markaan leeyahay si cilmiyeysan u qoran waa buug cilmi la sameeyay daraasaad sidoo kalena la soo xigtay xogo sugan oo ku saabsan fariinta uu sheegayo ma aha buug qaab sheeko looga sheekeynayo dhaqaalihii jamhuuriyaddii Soomaaliya waa buug si cilmiyeysan uga hadlaya waa buug sawir ka bixinaya maxay ahayd tole dhaqaalihii Soomaaliya sidee buu ahaa qof kasta oo barta cilmiga dhaqaalaha oo imika baranaya qof kasta oo doonaya inuu barto iyo qof kasta oo bartay laakiin si aan soo gaadhin xilliga uu buugani ka waramayo ama soo gaaray xilliga buugani uu ka waramayo oo ahaa laakiinse da'yar wax barata wuxuu siinayaa sawir ku filan uu ku go'aan qaato dhaqaalihii Soomaaliya sidee buu ahaa runtii aniga oo garaadsaday intii buugan uu ka hadlayo kadib oo buugan uu ka hadlayo 1960kii ilaa 1991kii sawirka buugani itusay markii aan akhriyay iyo sawirkan ka haystay dhaqaalihii jamhuuriyadda Soomaaliya aad buu kala duwan yahay waxaana filayaa qof kasta oo baranaya cilmiga dhaqaaluhu oo hibateynaya ama isle dhaqaalihii jamhuuriyadda Soomaaliya xaaladda maanta ay Soomaaliya ama Soomaaliland ku jirto uu ka weynaa wuxuu siinayaa sawir iyo jawaabta ka gedisan tusaale ahaan buugga markaad akhrido wuxuu ka sheekeynayaa dhaqaalihii Soomaaliya markay xorriyadda qaadatay sidee buu ahaa qoraaga buuggu wuxuu soo xiganayaa oo warbixinaha World Bank uu qoray ee cadaymaheeda wadatay buug ku qoray sheegayaan in dhaqaalaha Soomaaliya uu la bilaabmay kacaakuf iyo nuglaashiyo tusaale soo qaadanaya wuxuu oranayaa 1960kii saddexdii sanadood ee ugu horeeyay jamhuuriyadda Soomaaliya dhalatay miisaaniyadda ay dawladda Soomaaliya ku shaqeynayso 330 waxa ka baayay dawladihii gumaysiga ee markaa xorriyadda siiyay Ingiriiska iyo Talyaaniga taas waxa ku tusaysaa cashuur ururinta iyo kharashaadka ay dawladdu kalayso in laga caawinayo wuxuu kaloo soo qaadanaya qoraagu ka sheekeynaya ama uu ku soo qaadanaya buugiisa wax loo yaqaan dhaqaalaha Soomaaliya maxaa waday ee uu ku tiirsanaa wuxuu oranaya wuxuu ku tiirsanaa sideen horeba u naqanay xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha oo uu soo qaadanayo muuska xoolaha nool wuxuu soo qaadanaya marka uu ka hadlay dhaqaalaha lacagta adag ee dibadda ka timaada ee Soomaaliya soo gasha buuggu wuxuu oranayaa dakhliga adag ama hard currency dibadda Soomaaliya uga yimaada 80% waxa soo xareyn jiray xoolaha nool ee dibadda u dhoofiso wuxuu soo qaadanaya muuskuna door buu lahaa oo markaa ay isku darka wasaaradda beeraha iyo xanaanada xoolaha wada maamuli jireen qoraaga buuggu wuxuu soo qaadanaya oo ay qof kasta tusinaysaa dhaqaalaha uu hadaba dibadda ka soo xareynayo xooluhu ma aha mid ku filan noloshii iyo maxay hay'ado dhaqaalihi ay dawladdu maamuleysay ma yabo oranayaa dunida waxaan u dhoofino oo muuska iyo maxay hay'toolay ah xoolaha nool iyo harkaha iyo saamaha iyo cadka waxa ka badnaa waxaan dunida ka soo iibsano ee ashyaada aynu qoodano ama huga aynu isticmaalno ama shidaalka marka waxa jiray dhaqaalaha Soomaaliya 1960kii ilaa 1990kii inuu dhinaashiyo ku jiray balance of payment-ka ama lacagta dalka dibadda uga baxda iyo lacagta waddanka soo gasho taasuna dawladdu ay ku kabi jirtay saddex meelood ka keeni jirtay dakhliga ay ku kabi jirtay mid ay ka keeni jirtay deeqaha la siiyo mid ay ku kabi jirtay deynta ay soo qaadato iyo mid ay ku kabi jirtay oo ahaa wax loo yaqaan caawimooyinka waxa markaa aad u la yaabaysaa in dawladda Soomaaliya mararka qaar ay abuuri jirtay qaxoontiyo barakac gudaha ama waxa loo yaqaan IDPs-ka si ay ugu hesho
raashin la siiyo dadkaas oo raashinka dadkaa la siiyaa dowladduna intay suuq madow samaysato ay dadka ka iibin jirtay oo lacag ku heli jirtay marka waxaad sawiranaysaa oo dhex muquuranaysaa badweyn xog ku saabsan oo ah dhaqaalaha Soomaaliya inaanu ahayn dhaqaale marnaba cagiisa isku taagay oo xoogan arinta dhinaanshiyaha waxa dunida u dhoofisay waxa la soo degto dunida saddexaad gaar ahaan Afrika waxa saxaraha ka hooseeya ayay kala silnayd ee xorriyadooda qaatay xilliga ay Soomaaliya qaadatay sababta ana wuxuu oranayaa qoraaga buugu waxa keenaya dhaqaalaha oo ku tirsanaa hal shay ama laba shay labada shayna ay yihiin wax loo yaqaano alaab cayrin ama waxa raw materialka lagu yiraahdo neef sidiisii lagu iibgeeyo iyo muus la iibgeeyo way dhaqaaluhu wuxuu ku tirsanaan karaa adeeg ama wax loo yaqaano warshado alaab wax soo saar ama wax loo yaqaano macdan iyo shidaal iyo maxay ari iyo muus oo raw material marka waxa dhacaysa oranaya qoraaga buugu in Soomaaliya ay waxa ugu badan dhoofisaa waxa xoolaha sanad kastana 1970 ilaa 2008 waxa dhoofineysay in ka badan 1 milyan oo neef oo 180 ay ka dhoofi jireen dekada Berbera halka milyan ee neef ee dunida u dhoofisa markaad eegto wuxuu ahaa raw material waxaan u dhoofin jirteen hal suuq oo ah suuqa Sacuudiga ما هو كل دوري سلاشن كيس دي أنا مقالة مركز دعوة حنون كريفت فالي إني الشوج سي محاهي تولي حولها محاهي تولي بوكانو يشجعي وقف كستو حق نقالة وبها الصومالية وتصينيا إن بدون دولة السعودية يشوجين جرتا محنا قبتين ساري جرتي حولها النور يا صوماليا ويبقى السعودية وحبوك ورنايا كل سجال بقولي ستحي ستيتنكي يا فري ستيتنكي صوماليا واحد نقبتين ساري السعودية markuu cunaqabateen saaray xoolaha noola oo xajka ugu badan la geyn jiray dhaqaalihii Soomaaliya oo loo yaqaano waxa GDP-ga la yiraahdo ama wadarta wax soo saarka gudaha 44% ayuu dhinmay sanadkii xigayna uu ka sii batay taas waxay keentay in dawladda Soomaaliya ay u baahatay caawimo iyo maxay ku tiirsanaan dhaqaale oo dibadda waxyaabaha buugu soo qaadanaya ee xiisaha la waxa kamid ah dadka marka imika la sheekaysanaysa soo gaadhoolay 70aadka ay kooranayaan markii waqooyiga ay ka dhacday abaartii daba dheer dawladda Soomaaliya way soo gurmatay dadkii abaaraha wax ka kicisay waqooyiga waxa geysay wabiyada Jamaama iyo maxay ahayd koonfurta dadkii wax laga dhigay beeraley marka dawladdu waxay ahayd dawlad dadkeeda ogeyd dawlad waxbarashada bilaash ahayd dawlad qofka marka abaaroobo ay abaarta dadka inta meel ka kaxayso meel barwaaqo keenayso musawirka waxa ka sheekeeya dadkii bariga ama generation kii la raray ahaa ama waalidiintii dadka dhalay laakiin xaqiiqada buugu uu sheegaya wuxuu ku oranayaa qoraaga buugu markii abaartii daba dheer 37 iyo 47 ay dhacday Soomaaliya ay ka dhacday dawladda Soomaaliya waxay mucaawimiye gargaar weydiisatay midowga Sofiyeed oo xulafo weyn la ahayd maadaama ay qaaday mabda loo yaqaano hanti wadaag dawladda Soomaaliya dawladdii maxay ahayd toolay Sofiyeedku waxay Soomaaliya soo dirtay diyaarado iyo gaadiid marka dawladda Ruushka ayaa ka qaaday dadkii qoqooyiga abaarta ku dhacday oo koonfurta geysay wixii ay quudinayeen iyo meelihii ay degayeen iyo wixii ay baranayeen wax lagu maalgelinayay deeq u bixiyay midowga Sofiyeed dawladda Soomaaliya waxay ka lahayd dadka inay soo rartay bartan keento inay deeq kaga hesho dadka dibadda maxay ahayd dawladaha dibadda xulafada la tay mar walba waxaad arkaysay inay dawladdu lacag ku helaysay marka dadka gudaheedu ay barakacaan ama colaada ay barakaciyaan ama abaar ay barakaciyaan dawladdu waxay ka helaysay caawimo la siiyo marka waxaad arkaysaa dawladda Soomaaliya waxay dhaqaalaheedu mid ku tiirsan mucaawimo waxa dhacay walbaanku wuxuu sameeyay dabayaaqadii 70aadkii wax loo yaqaano dib u qaabaynta dhaqaalaha oo dunida saddexaad oo dhan dhaqaalahooda in la jaangooyo sameeyay dawladda Soomaaliya waxa ku soo biirtay horaantii 2008kii ayuu qoraaga buugu xusaya oo wax loo yaqaano structural adjustment program ama dib u qaabaynta dhaqaalaha ayay la gashay waddamadii reer galbeedka markii ay ka timid midowgii Sofiyeed isku dhaceen oo tusaale wuxuu soo qaadanaya buugu oo qoraagu oranaya dawladda midowga Sofiyeed may doonaynin inay dawladda Soomaaliya dagaal ku qaado Itoobiya dagaalkii 77 in badan bay uga digeen madaxweynaha markaa joogana wuxuu arkayay in dhul Soomaaliyeed laga haysto uu soo celinayo kadib dagaalkii Itoobiya isagoo iska dhaga adeegaya cidii gacanta ku haysay dawladdiisa midowga Sofiyeed ayuu dagaalkii 77 galay dagaalkii 77 dawladda Soomaaliya waa lagu dhifiid garay maadaama midowga Sofiyeed soo raacay
maxay ahayd tolo Ethiopia midowgii Soviyeed waxa xiriirkooda xumaaday dawladdii Soomaaliya marka waxa uu wareegtay booranaya qoraaga buug ama buug inoo sheegaya reer galbeedkuna iskamu imanin Soomaaliya shuruudo dhaqaale ayuu la soo galay oo oranaya dhaqaalaha wadankaaga waan ku caawinaynaa annagana gacanta ku haynayna waxa maalgelintii ugu horeysay ku sameeyeen waxa loo yaqaano suuqa muuska may soo galin beeraha suuqa muuska uu ka sheekeynaya buug wuxuu oranayaa muusku waxa la bilaabay beerashadiisa 1927 waxa beeran jiray ganacsato maxay ahayd toolay Talyaaniga markii xorriyadda la qaatay muuskii Soomaaliya lagu wareejiyay beeraley Soomaaliya lagu wareejiyay beeraleyda Soomaaliya dhowrkii sanadood ugu horeeyay wax soo saarkii ay soo saari jireen muuska Soomaaliya kala badh dhulkii la beeran jiray ayaa soo ururay kadib wax soo saarkina kala badh ayaa hoos u dhacay kadib dawladda Soomaaliya waxa u baahatay inay soo celiso Talyaanigii marka Talyaanigii soo celisayna Talyaaniga shuruudo sameeyay marka wuxuu beeraha anaga maal gashayna faa'iidada anaga qaadanayna marka waxa dhacaysu buugu sheegaya in wax soo saarkii ay maal galiyeen wadamada reer galbeedku faa'iidadii ka soo baxday muuska 170 waxa qaadan jiray reer galbeed 25 kharash wax uu noqon jiray taasuna waxay keentay in dhaqaalihii Soomaaliya u nuglaado gacan ku haynta wadamada reer galbeedka ay noqotay tiina waxay keentay markaas in ay deyn aad u fara badan dawladda Soomaaliya qaadatay wixii ka dambeeyay 80 ilaa 90 muddo 9 sanadood deynta ay Soomaaliya qaadatay oo dhowr meelood ka qaadatay waa deynta maanta inaga nool iyo generation-ka dhalan doona inaga inaga tafirmi doona awood u noqon doona ama aabayaal laga doonayo inay bixiyaan sidee u bixinayaan waxa u bixinayaan dakhliga waddankaas soo saaro aynu Soomaaliya ama baday Somaliland in laga goosto wax soo saarkooda dakhligooda oo loo dadkii deynta lahaaba la siinaya marka deynta inta leegna waxa la galay uu oranayaa markii la qaatay wadamada reer galbeedka ee dhowr iyo 80kii marka waxa arkaysaa dhaqaale ku bilaabmay 60kii kacakuf oo 90kiina ku sii darsaday isagoo maxaa la leeyahay isagoo duleehayo ayuu dhaqaalaha Soomaaliya dhashay isagoo qaaxa qabana koobiskaashkii baa leeyay that means xaaladdu way ka sii darisay marnaba kabay soo dooreen markaan ku eegno qof xanuunsanaya oo socda oo mar bukaan socda ilaa markii dambe dhulka la dhigay marka waxa musawirka uu ku siinayo buugu noqonaya dhaqaale nugul oo ku tiirsan kaalmo iyo caawimo iyo raashin waxyaabaha xiisaha la waxa kamid ah buugu xusaayo wuxuu oranayaa mararka qaar baa raashinka dibadda ka yimaada Soomaaliya oo ahaa 1% markii dambe ilaa 100% gaaray wuxuu markaa soo qaadanayaa in abaaraha colaadaha ay keeni jireen in xoolo fara badan leedaan dad fara badan barakacaan beeraha ay baabaan abaaru baabiya markii wabiyadu ay guraan inay faqrigaasna uu keeni jiray dadku maxay ku tiirsanaantii maxay hayto noloshoodu inay isbedesho magaalooyinka markay yimaadaanna ay nolol adag markaa noqon jirtay marka waxaad arkaysaa nolol adag oo soonaysa malaateen bilaa itiraafka waa mararka qaar dhaanta xaaladda noocaas ee lagu jiray ayaad aad u muusoonaysaa qaybta ugu dambaysa oo kaga hadlayo maaliyadda buuga qoraaga wuxuu xusaya aan ku soo gabagabeynayaa arrin maxaa loo yaqaanay dawladda Soomaaliya waxay adkaysay lacagteeda in badan baan imaka mararka qaar marka laga sheekeysanayo isku sarifka lacagaha ayaa waxa la soo qaataa waddanka Djibouti ayaa odayaasheena waaweyn marka la sheekeysan soo oranayaan dhowr iyo 80kii inta uu marayay $1 maxay ahayd inta franc ayuu ilaa imika yahay oo marka waxa loo yaqaan beegid ama in la isku sidka bay noqonaysaa wuxuu qaadanayaa siyaasadda isku sidka ama ay dawladdu sarifka jaan goynayso ay dawladda Soomaaliya qaadatay waqtiga marka isku sidka lacagteedii ba adkaysay marka lacagteedii adkaysay waxa abuurmay suuq madow oo dawladdu controlling waxa abuurmay lacagii laga keenay jiray khaliijku inuu suuqa madow soo maro oo xagee lacag kaga iman lahayd iyadoo raashin la keeno inay dawladdu dhammayd xakameyn kari weydo in dhammaan nidaamkii maaliyadeed ee Soomaaliya tabayaaqadii dhowr iyo 80 uu buusalafay uu baaba'ayba bay noqonaysaa marka waxa soo 10 waxa laga baranayaa haddii dawladdu doonayso inay lacagteeda isku sidigto iyo sarifka iyo maxay ahayd lacagteeda waa inay haysataa heerkaan si fara badan oo adag oo ay ku manage karayso hadii kale miya suuq madow oo musallafiya ama baabiya maxay dhaqaalaheeda imanaya taasuna waa cashar ka baran karaan maxay ahayd gudoomiyaha bankiga iyo cid kastoo inoo haysa financial regulation ga wadanku inay taad ku haysaan marka musawir xaalad dhaqaale oo 30 jirsatay oo ka kufu badan ayuu sameeynaya anigu xagga naqdinta buuga waxaan isleeyahay markaan eegay buugu wuxuu aan isleeyahay waxa ku naqdiyaa buugu wuxuu ka soo xiganayaa inta badan warbixinaha World Bank
inta badan way jiraan qoraayo kale oo madax badaan soo xiganaya laakiinse waxa uu soo xiganaya xogaha World Bank ay ka qoreen ama warbixinaha sanadlaha ee World Bank ay ka qoreen dhaqaalihii Soomaaliya marka xaggii dawladda Soomaaliya ay jirtay dhaqaalaheeda riboodada ay dawladda ama bankiga dhexe Soomaaliya ama wasaaradda ganacsiga Soomaaliya ama waxa loo qorsheyntu ay soo saartay inta badan xogaheedu kuma jiraan laakiinse waxa weeye xogo laga soo xiganayo cid iyadu markaa ka warbixinaysa cid aan ahayn oo iyada oo loo tirin karayo dadkii nuguleeyay dhaqaalaha Soomaaliya oo dadka waxa la yiraahdaa World Bank iyo IMF-tu waa dad institutionska hagaasiya dhaqaalaha wadan oo soo koro wadan ay World Bank iyo IMF yimaadeen dhaqaalahooda gacanta ku hayeen oo dunida najaxayna ma jiro mid hagaasay oo deemaysan mooyaane maanta in badan waxaan arkaa iyadoo Soomaaliya lagu saabinayo deyntiiba laga cafinayaa Soomaaliya oo waxay taas u saamaxaysaa inay deyn cusub qaato deynta cusubna waxa weeyaan waa markab degaya oo markaniya la soo quusiyay onba kadintu way deyntu dhaqaalaha haday iska bixin kareen bal nintii hore iska bixin kari waayo la tukaran qaadanaya bal ka waran way adkaanaysaa deyntaasuna waxay imanaysaa shuruudo iyo xaalado adag marka waxaan isleeyahay qof kasta oo dhaqaale baranaya cilmiga dhaqaalaha oo Soomaaliya oo u baahan inuu xogta ogaado taariikhda dhaqaalaha Soomaaliya uu u baahan yahay hadduu macallin yahay hadduu arday yahay iyo qof kasta oo baahan inuu darso maxay dhaqaalihii Soomaaliya sidoo ahaa waa buuggii ugu horeeyay si cilmi iyo qoraaf Soomaali ku qoran ee dhaqaalaha Soomaaliya ka warramaya bismillaahir rahmaanir rahiim abdulaad buu madsan yahay su'aasha hore ee reer guuraaga runtii gudoomiyaha waxaan ku waafaqsanahay in marka la eego dhulka Soomaalidu sida uu yahay roob yaraanta maxaan dhahday dhul buureelay tusaale ahaan inay adag tahay in wax la beero tusaale ahaan ama wadanku soo saarto isku filaasho uu gaaro isku filaasho cunto laakiin waxaan aragtida reer guuraanimada iyo nidaamka nolosha reer guuraanimada aan la qabaa xildhibaan Mukhtaar Maydhane waxaan aaminsanahay in nidaamkaasi sida xildhibaanku sheegay uu yahay sidii aynu naqaanay ee aynu soo gaadhnay laakiin aynaan waxba ka bedelin dawladnimadii Soomaalida iyo aqoontii midina nidaamka reer guuraaga oo runtii ah nololka caakufiya adag u badan oo aanay dadku fursad waxbarasho helin oo aanay fursad caafimaad helin oo la oran karo waxay u badan tahay inuu maxaan dhahday mar abaar lagu jiro roob yar yahay iyo mar caanaha la daadinayo xataa aan suuq loo helin maxaan dhahday wax soo saarka wadanku uu haysto waxaan runtii aaminsanahay in nidaamkaasi waliba waqtiyadan dambe abaaruhu aad soo noqnoqdeen inay aad u adag tahay in lagu sii noolaado waxaan aaminsanahay oo xildhibaankana ku waafaqsanahay in lala yimaado aragti iyo aqoon iyo farsamo iyo dhaqaale iyo siyaasad dawladeed oo nolosha reer guuraanimada dib loogu qaabeeyo maaha nolol sustainable in badan bay soo jirtay laakiin wax badan bay ku weynaa qaabka u taalo tusaalahaan markaynu eegno marka sababtaas baan ugu soo qaatay buuggana inaynu isweydiin karno ma tahay runtii nidaam sustainable oo sii waari kara oo sii jiri kara su'aasha labaad runtii intaan laga hadal hanti wadaagga waqti ku filan ma la siiyey anigu waxaan argumentkayga ugu waaweyn ka dhigayaa sida loo qaatay lafteedu inay qaldanayd oon diyaar loo ahayn hanti wadaagga looma qaadan in daraasad lagu sameeyey oo loo arkayey in horumar dhaqaale lagu gaari karo laakiin waxa keenay duruufaha keenayna waxa ugu weynaa maadaama jamhuuriyaddu ay doonaysay inay dhul maqan soo celiso khaasatan dhul Kenya iyo Ethiopia kaga maqan waxay doonaysay inay hesho ciidan adag inay dhisato ciidan adag inay dhisatay mucaawino ciidan loo dhiso heshana fursadda ugu weyn waxay ka heshay maxaan dhahday midowgii Soviet sababtaas ku dhiirigelisay markaa inay qaataan nidaamka midowgii Soviet dood kale jirto oranaysa midowgii Soviet waxay gacan ku lahaayeen inqilaabkii uu Maxamed Siyaad Barre kooxdiisa wadanka ku qabsadeen in nidaamka hanti wadaagga la qaatana waxay ahayd abaalmarin loogu abaalgudayo sidii ay u fududeeyeen gacan uga geysteen maxaan dhahday inqilaabkii askartu wadanka ay ku qabsatay marka duruufaha keenaba qaldana marka koobaad marka labaadna maxaa la qaatay waxa la qaatay scientific socialism dawlado badan oo Afrika ka jira waxay qaateen African socialism waxa tusaale buugu aad ugu soo qaadanaya Ghana iyo Nkrumah
tanzania ama tanganyika oo markaa la odhan jiray julius nyerere iyo waddamo kale oo afrika ahaa waddamadaasi waxay isku dayeen intay soo qaataan nidaamkii hanti wadaagga ahaa oo classical socialismkii ka dhashay yurub inay waaqacoogii ku saleeyaan oo ay noloshoodii maxaan dhahdaayeen qaab la jaan qaadi kartaa ay uga dhigaan marka nidaamka african socialismku waxaa la odhan karaa inkasta oo argumentka guud uu yahay in hanti wadaaggu guud ahaan afrika oo dhan uu ku fashilmay haddana waa dood baa jirta ah in maxaan dhahday african socialismku uga dhowaa waaqaca oo uu shaqayn karayay marka anigu isma lihi muhiimaddu waa wakhtiga waxaan isleeyahay muhiimaddu waa siyaasadda la qaatay iyo nidaamka la qaatay iyo nidaamka dhaqaale ee soomaalida oo sidii yaasin sheegay ama buugguba uu sheegayo dee dhaqaalaha waddanku nidaam wuxuu ku tirsanaa xoolo dhaqato nidaam hanti wadaagsado u maamuli karaa ma la nationalize garayn karaa dhaqaalahooga siyaasadda ma lagu jaagoyn karaa qofka reer guuraaga ama xoolo dhaqatadii dawladdu awood badan kuma laha inay noloshiisa qaabayso tusaale ahaan marka waxaad is odhan kartaa xataa nolosha bini aadanka soomaalida iyo waxay isdiidayeen nidaamka laiskumana dayin in la contextualize gareeyo oo waaqaca soomaalida iyo nolosha soomaalida lagu saleeyo hanti wadaagga la qaatay taasaa keentay ismalihi muhiimaddu mushkiladdu waa wakhtiga anigu waa si wanaagsan arrintaas hanti wadaagga iyo nidaamkaas ayaynu su-aalaha ku sii yarwaraynaa xildhibaan banalkan ku yar noqonayaa waad yar sugaysaa adigoo mahadsan xildhibaan mukhtaar ayaa rabaa laftarkiisa inaan weydiiyo su-aal ku saabsan nidaamkaas uu soomaaliya ay qaadatay toddobaataneyadii iyo sida qur-aanku sheegayo inay isdiidooyin ka dhaxaysay oo isdiidayaan waaqicii ummadda soomaaliyeed ee xilligaas marka horta jawaabta si kooban loo idhaa waa haa laakiin haa iyo maya isku dhex jirta qaybteeda haada ah waa run oo way adag tahay soomaalida oo weliba gaar ahaan deegaanada xoolo dhaqatada ah waxaa aada u adag haddii eebba kuu roon yahay in la qaramayn karo xoolihii inay noqdaan xoolo dan guud ah way adag tahay waxyaabaha aasaaska ah waxaa ka mida inay dadku yeeshaan cinwaan laga soo helo ayaa aasaas nidaamyadan dhaqaalaha badiya ayaa u ah qofkanna asalkiisuba waa inaanu cinwaan lahayn markaa horta way adagtao halkaasi waa xaqiiqo laakiin dhaqaalaheenoo dhani ma wada ahaa wax gaar loo wada leeyahay bayadna su-aal kale ah oo waxaad arkaysaa dhinaca kalena waxyaabo badan oo dan guud ah waxyaabo badan oo dan guuda deegaanada xoolo dhaqatada u badan waa deegaanada u badanee daaqsinka ballaadhan leh deegaanada beeralaydaahina waa deegaanada ay yar tahay dhuldaaqsimeedkuu yaryahay weey marka labada iyagu waxaa ka dhaxeeya dhul aad u ballaadhan oo ay wadaagaan oo iyada laftarkeedu dee dan guud ah iyada laftarkeedu dan guud ah baa ka dhaxaysa midna way caddahayoo wakhtigaa inaanay soomaalidu ama hanti wadaaggaba si guud u dheh ama ku cilmi ku dhisan si gaara u dheh ayna qaadanna way caddahay waxaa jira wafdi uu hoggaaminayey fidel castro oo markii inqilaabku ka dhacay etoobiya isku dayayey inay u kala dab qaadaan etoobiya iyo jamhuuriyaddii soomaaliya si maadaama labadiiba iminka shuuci noqdeen loo mideeyo etoobiya wakhti dheer may ahayn markan oo inqilaabkuunbaa dhacay welibana waxaa lagu mashquulsanaa kala sifayntii inqilaabka gudihiisa ayaa la odhan karaa ayaa lagu mashquulsanaa oo bilow bay ku jiraan soomaaliduna markan muddo ay ahayd qayb ka mida nidaamkii shuuciga ahaa qayb ka mid ay ahayd fidel castro markii uu ka noqday warbixintii uu gudbiyey waxay ahayd labada marka la eego soomaalida iyo etoobiya inay etoobiya uga dhow yahay shuuciyadda ay shalay qaadatay soomaalidaa sheeganaysa magacaa halkan yaala laakiin nidaam ahaantana u dhow ayuu yidhi habdhaqankii markaa dadku garanayeen dabcan isma waafaqin laakiin miyay tahay arrimaha ugu waaweyn ama xad intee leeg bay ku leedahay
burburkii iyo dagaaladii iyadna waa su-aal ka ballaadhan baan isleeyahay oo iminka ahaan aan halkaa had iyo jeer dhaqaalaha iyo dagaalku way wada socdaan. dhaqaaluhu dagaalka wuu keenaa wuuna wadaa. mishiinka ugu weyne ee dagaal wadaa waa dhaqaale. dagaalo badan oo adduunka ka soo dhacayna waxaa la qirsan yahay sababta lagu kala adkaaday inay ahayd un dhaqaale, hayn in lagu kala adkaaday ayna ahayn wax intaa dhaafsiisan. marka dhaqaaluhu had iyo jeer wuxuu ka yahay halbowle ayuu ka yahay. nidaamkanna wuu noqonayaayoo nidaam intii weliba magaalooyinka iyo dhinacna ka abuuray sida buuggana ka cad imikadana laga hadlayey nidaam sadbursiimana abuuray oo intii talada dalka haysay iyo inta ay rabtay inay naasnuujiso ay ku adeegtaanna wuu noqday. sidaa darteed haa qayb buu ka ahaa, laakiin lama odhan karo waa dee ka ugu weyn iyo xad intee leeg. waxay u baahan tahay baan anigu islaahay baaritaan intaa ka sii badan. waad mahadsantihi. si fiican aad iyo aad xildhi baan u mahadsantahay. weli adigaan kugu soo celinayaa mar kale. waxaan weli ku jirnaa halkaa dhaqaalaha iyo siyaasaddu iska gasho. mid su-aal kale ayaa waxay markaa rabay inaan kaa yar weydiiyo dhaqaalihii jamhuuriyaddu sidaas ayuu u liitay ama u taag darnaa xilligaas. dhanka kalena hankeedu aad ayuu weynaayo filashada waxaa laga sugaayey. marka dhaqaalaha dal uu sidaas u jilicsan yahay sidee ayay u saamaysaa maxay ahayd tusaale ahaan Soomaaliya jamhuuriyadda markaas waxay doonaysay dhulka maqan bay raadinaysay oo ka mid ahaa himilooyinka ugu waaweynaa ee loo aasaasayba ee midowga u yimi. sidee ayaa dhaqaalahaas iyo koboc la'aanta dhaqaaluhu ay u saamaysay mowqifkeedii gorgortan ee caalamka iyo ka dhabaynta himiladaas dowladda loo aasaasay? odhaahbaa waxay ahayd qofkaan quudkiisa kasban go-aankiisana ma yeesho. horta haddaanad quudkaaga ka adkayn way adag tahay inaad joogsato meel uu qofku markaa ka gorgortamo oo adag. waxaa laysla qirsan yahay habkan dhaqaalaha adduunku u shaqeeya laftarkiisu inuu aada uga hiiliyey dalalka ay jamhuuriyaddu ka mid ahayd ee afrikaanka ahaa ee marka dambe intay xorriyadda qaateen haddana galay gumaysi nuuc kale ah oo ka duwan un qaab ahaan qaabkii hore, laakiin weli uu miiranayo gumaystihii hore laftarkiisu uu miiranayo. dhaqaalaha iyo go'aamada siyaasiga qoraallo badan oo aada uga hadlada ayaa buuxa. malaha waxaa buugaga ugu caansan waxaa ka mid ahaa Conventions of an Economic Hitman oo kalebaa ka mid ahaa oo ka hadlayey maaha uun laakiin ka keliya in waddamo badan la gelinaya baa muuqata deymo ayna u baahnayn si ay ugu tiirsanaadaan waddamadaa markaa deymaha siiyey oo ay uga maarmi waayaan si go'aamadooda loo saameeyo. markaa in baahiyo laguu abuuro waa qayb ka mid ay ahayd. siyaasadda waxaa odhaah aan ahaydba waxay ahayd politics is the continuation of war by other means. siyaasad baa la ydhahaa waa sii wadka uun dagaalka laakiin sidii hore ka duwan. meeshan hirdan baa mar walba jira. hirdanka ugu weyna waa laba shay unbaa lagu hirdamaa. waa hanti ama khayraad iyo waxa lagu hirdamaa waa awood. awoodda waxaad u baahantahay inaad hantidan ku haysato ama aad hanti ku dhacsato ayaa loogu hirdamayaa. sidaa darteed mar walba waxaan isleeyahay qayb buu dee ka noqonayaa dhaqaaluhu meelo badan oo wuxuuna dhigayey dowladaha yaryar oo dhan ama dowladaha dhowaanta qaatay gobonnimada oo dhan meelo daciifa buu dhigayay. waxaa xusid gaara mudan
dhaqaalaha ku salaysan halka shay ama ha noqdo shaygaasi xoolo nool ama ha noqdo muus ama ha noqdo shay kaleba waddamo badan baa ku salaysnaa dhaqaalahoodu hal shay oo dibadda markaa u dhoofiyaan waddamada sidaasoo dhani waxay joogsadaan mar walba waxay joogaan meel xaalad aad u cidhiidhi ah waddamada ka yar duwanaada inta badan waa waddamada shaygaasi uu yahay shidaal shidaalku meelo badan buu isagu galaa laakiin hadday tahay waxaad ku tiirsan tahay dalalka qaar baa ku tiirsanaa baalkan shakoolaha laga sameeyo ee kookooga la yidhaahdo ayay ivory coast oo kale ay ku tiirsanayd dhaqaalaheedu markaa waddamada qaar dhaqaalahoodu halkaa shay ku tiirsan yahay halka shayna uuna ahayn mid meelo badan gali kara sida shidaalka oo kale oo adduunyo badan oo kala duwan muhiim u noqon kara mar walba dhaqaalahoodu cidhiidhi buu ku jiraa u fiirsa innagana marar badan waxaa la tuhunsan yahay xoolaha sababta la inooga xayiro ee suuqa keliya een u haynana uu inooga xayiro inay ku lug leedahay siyaasad markaa haddii suuqaagiina mid noqdo waxaad geynaysana hal shay noqdo waxay ku dhigaysaa gorgortanka meel aad u hoosaysa ayay ku dhigaysaa dhaqaaluhu gorgortanka qayb muhiima ayuu ka yahay sidaa darteed baan odhan karnaa maasanta aad iyo aad mahadsantahay xildhibaan iminka waxaan su-aasha weydiinayaa guddoomiye ku-xigeenka cabdiraxmaan waxaan cutubyada buugga waxaa ka mid ah mid ku saabsan deyntii iyo ku tiirsanaantii gargaarka iyo deeqaha dibadda arrintaas miyay ka baaqsan karaysa jamhuuriyaddu sideedaba maxay ahaydey gaar ahaan xagga maalgelinta mashaariicda horumarinta wax alternative ah miyuu jireen oo miyay noqon karaysaa in dhaqaalihii jamhuuriyadda loo soo jeedin karaayo maxay kula tahay بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شان ويسدو تاجي هرتان هل قضب صحة هدي عادي مثلا سومالي أنا هتاد مرتو أو عاد قبل ذلك ردونا تكتو تسألان هدي قبل بريو قبل كسرار أو هذا حق عرقة بكسو صعدا عاد بور راب كسو بحضو أوك مركز ما نيس waxaad arkaysaa in dhaqaaluhu way leeyahay shayga keliya aynu ku tiirsanay banka saraareed wuu qarsoomaa marka adhiyaha lagu soo daayo maalan sanadkii 2012kii rubuc ka mida wixii Soomaaliland dhoofisay 1 milyan oo neef baynu dhoofinay 2012kii oo dekada barbar ka dhoofay 250,000 ayna baa dhoofisay tusaale ahaan banka saraareed wax kale oo aad ka beeri karto aanad xoolaad ku dhaqataan ahayn ma jiro qodobka muhiimka ee aan doonayna isku taago wax weeyaan aynu kala saarno maxaa ay tahay in dawladdu u fidiso adeegyada loo fidinayo xoolo dhaqatada su'aasha kale oranaysa isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqonaya iyadoo mushkilad taagan waa daruuri in adeeg loo fidiyo xoolo dhaqatada مثلا haddii xoolaha la tallaalayo haddii la dhaqaaleynayo waa daruuri la'aantoodna kama maarmayno su-aasha odhanaysa isbeddelku waa suuragal haa waa la samayn karaa isbeddel waa suuragal dalal badan oo afrika oo saxaraha ka hooseeyana waa laga sameeyey laakiin markaad doonayso in economic transformation aad samayso riskis baa ku jira ay tahay in aanad indhaha ka lalin xuquuqo badan oo asaasiya oo bila aadan baa lagu tuntaa adeeg xuquuqo badan nafo badan baa baxaa marka economic transformation horta dee si peaceful ku dhaca oo dadka ma garanaysayay haddii loo daayo waqti dheer buu qaataa haddii aynu rabno in la sameeyo isbeddel oo maalan aynu dhaahno inama si anfacayo reer guurwanimada iyo xoolo dhaqatanimada aynu ka guurno waana diyaar u noqoto inaad nafo badan bixiso taasina dhaqan dhaqaale oo Soomaali way adagtay oo suuragal maaha أنا وحنا سلاي هاي عبد الرحمن هان مركان بوق آخرين وحياة بدنا مهمة وتابتين دولتي سواش أنا نكتشوف دولتي الصومالي دو يكون يسأل بقولي اللي إحنا كده على تاي هالشيء
ayaan isleeyahay daruuri bay u ahayd inay samayso laakiin ma yeelin siyaasiyiintii xilligaana qaar ka midii pragmatic bay ahaan sida maalan maxamed ibraahim magaalo oo kale dowladdii soomaalida ee jamhuuriyaddii soomaalida dhalatay 1960kii hal qodob oo muhiima aan isleeyahay bay dhaqaalahana wax ku tari lahayd xoolo dhaqatadana wax ku tari lahayd oo ah inay nabad la qaadato dowladda Itoobiya sababtana waan sharaxayaa jaamac maxamed markaad akhrido iyo historical documentska kaleba waxa ku soo baxaya maalan laba jeer ayuu ingiriisku bixiyay 1/3 kamid ah dhulkii Soomaaliland lahayd ee aynu heshiiska kugula galay 1884 labada jeer uu bixiyay mid waxay ahayd 1897kii oo la galay heshiis ka dhan ahaa heshiiskan uu la galay Itoobiya oo ku wareejinayay 3 meelood oo meel dhulkii Soomaaliland mar labaadna waxay ahayd markii ay soo baxay heshiisku 1954 lix sano ka hor xorriyaddii taasi waxay caqabad ku noqotay daaqsintii ay xoolaha Soomaalidu u foofi jireen مثلا dhulkani xad muu lahayn xuduudii waxay keentay in movementkii xooluhu uu meesha ka baxo dowladdii Soomaaliduna 64kii wajaalay kula dagaalantay 77kii mar labaad bay kula dagaalantay Itoobiya oo dagaal ay dhex mareen waxaan anu isleeyahay haddii shardi laga dhigi lahaa inaan la carqaladayn isu socodka xoolaha nabadna lala qaato Itoobiya way dhaami lahayd xaaladdu isku filaashay gaari lahayd jidka kaliya ee xoolaha Soomaalida laga dhoofin karayna wuxuu ahaa berbera ama xeebaha kale Soomaalida ma yeelin taas markaa waxay keentay caqabad ay ku noqotay ay ahayd weyn oo xoolo dhaqatada iyo dhaqaalaha Soomaalida ku habsatay qodobka kale ee aynu dhaqaale ahaan ay tahay inaan taariikh ahaan aynu taabanano waxa weeye 1899 ayay dagaaladii sayidku ay ka bilowdeen dhulkii Soomaaliland waxa laga yaabaa maalan imika ninku Hargeysa ka baxay Boorama u socda inaad dhul badan oo beeraha aragto 1889 ka hor dhulkan wada xoolo dhaqato ahaayo beerahan ma jirin arabsiyo gabadha iyo dila iyo ilaa Boorama markaad gaarayso beera ma jirin dadku waxay ahaan dad reer guuraaya oo xoolo dhaqata taasina waxay caqabad bay ku keentay in dadku way ku khasbanaadeen inay deganaadaan markaynu aan labada qodob aan ka imaado waxa isleeyahay qodob kale ayaa isna jiro oo uu buuguna ka tagay oo ah مثلا haddii mar kasta horta hal qodob kale aan xuso oo ah in isku filaansho la gaari karayay Soomaalidu isku filaansho مثلا Somaliland 1898 way gaadhay isku filaansho oo maxmiyadihii geeska Afrika ee Ingiriisku xukumayay ama Ingiriisku haystay waxaad maxmiyadda kaliya ee wixii ay dhoofisay oo ka batay waxay la soo degtay keedkeeduna oo fiicnaa marka waa la gaari karayaa oo ma aha idealis aynu iyo magaranaysaa malaawal iyo barisamaad laakiin waa taariikhiyan waana la baari karayaa qodob kale waan isleeyahay buugan aan ku kabilaha waxa weeyaan remittanceska muu xusin buugu yani Soomaalidu ha dhoofiso مثلا waxaynu dhoofinayno waxa ka badnaa waxaynu la soo degaynay intaynu dawladda yeelanay intii ka dambeysay laakiin tusaale ahaan buug waxa jira gabadh Belgian ay qortay oo consider Somaliland la yiraahdo Berlin Renders halkana way joogtay waxay tilmaamaysaa مثلا markii aynu halganka Somaliland u bilaabanayay 1985 dadkii reer Somaliland khaliijka ka shaqaysanay waxay Somaliland u soo direen yani waqooyiga Soomaaliya markaa Somaliland waxa soo direen 338 milyan oo dollar oo 15 jeer ka badnaa official government salary-gii ay dawladda Soomaaliya bixisay marka la isku daro wasaaradaheegii wakaaladaheegii wixii dhan marka la isku daro lacagta dadkii reer Somaliland ay khaliijka kaliya ka soo direen ayaa 15 jeer ka badnayd marka taa macnaheedu waxa weeyaan intii dawladda Soomaalidu ay jirtay waxa jiray lacag xawaalada oo dadka reer Somaliland ama Soomaalidu guud ahaan Somaliland طبعا bariga waxa ku badnaa siimaanada iyo dhoofka ay u soo diri jireen dib ay ugu soo diri jireen dalkii ay ka tageen dadkii ka tageen marka taasina dhaqaalaha way ka jirtay ilaa imkana way kabtaa waana xaqiiqo aynu la noolahay markaad eegto human development-ka waana ku dhaareeyaa raalli ahaada مثلا mar baynu ahayn hunters gatherers aynu dabato ahayn mar baynu xoolo dhaqato ahayn marka مثلا historically guud ahaan bilaadanka la eego marna waxaanu ahayn agrarian society soo weynu marna kii dambana industrial baynu gudubnay
أنا عبد الرحمن أهم وحن سلاي هدي أي نوع مثلا ورشدها بوجو تلمام أيوه قد ما أنتوا في الجروبي أما أن حنا قادين عقبتنا يبشرين هل استبدلوا كبودي كرنا مثلا وضمضان هرومرين لما أنتوا primary communities بيكتير سيهن واهرون شيء كلي على صوص عران وهذه أسعار السوق عالم كيس بدرشوا نقاله ذي بدقوا لكن ولا يقولي كرا مثلا بقول 8 مليون بحالكنا هذا السيفيس ايكونومي انت الاندستريال ايكونومي كبلودنا انه سيفيس ايكونومي نقولنا وانه adeegno afrikadan la lokirka horumar weyn gaari karnaa laakiin economic transformation aan qaadano waa caqabad xuquuq badan oo bilaadan baan ku tuman karnaa in laga taxadaro weeye aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasaan kaga jawaabi lahaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waa si fiican kasoo qaybgalayaasha sharafta leh malaawaan idinka raagay su'aalaha panelkan ku horeeyay iminka laba su'aalood baan qabanaynaa gudoomiyaha ku-xigeenka waxaa weydiinayaa gudoomiye maadaama dhaqaaleheenu ku tirsan yahay xoolaha nool maxaa qorshaa oo aynu u samaynay xoolo dhaqatada su-aashaasi weydiinaya aad baa waxaan weydiinayaa qoraaga buugga dowladda Soomaaliya xilligii ay 1960kii Somali Republic baa la odhan jiray waxay qaadatay haddana magacii way bedesho Somali Democratic Republic ay u guurtay haddana mar saddexaad haddana waa tan imika gadaal laga bedelay buugguna wuxuu qaatay magacii koobaad ayaa ugu magac dartay qoraa isbedelka dhaqaale ee ugu badan iyo ka siyaasadeed ee ugu badanba wuxuu dhacay xilligii magaca dhexe la odhan jiray ama la odhan jiray Somali Democratic Republic la odhan jiray ayuu dhacay isbedelka ugu badan sabab ma ayaad adigu doorka ama muhiimadda u saartay xilligii 9kii sano ee hore ee aan isbedel dhaqaale oo badan iyo mid siyaasadeed oo badan aanu dhicin oo aad magaca buugga ugu magac dartay su-aasheedu waxaan weydiin lahaa ustaad yaasiin calase waxay odhanaysaa su-aasheedu dhaqaalaha dalkeena caqabad intee leeg ayay ku hayaan waddamada shisheeye su-aasha labaad ku weydiin waxaa ma laga maarmi karaa IMF-ta iyo bangiyada adduunka oo labada curyaamay dhaqaalaha dalkeena sidaynu uga maarmi karnaa waan soo koobayaa jawaabtaa runtii horta waa runoo doodda magacu way jirtaa inaan bilowgiina xusay ahayd dad badan oo comment uu ka soo noqday way jiraan maxaad jamhuuriyaddii Soomaaliyeed u qortay tusaale ahaan 1960kii israac baa dhacay Somaliland oo tan Ingiriisku haystay iyo Soomaaliya oo Talyaanigu haystay baa midoobay waxa ku midoobeen magaca la odhan jiray Somali Republic Somali Republic laba siba waa loo turjumaa dadka qaar waxay dhahaan jamhuuriyaddii Soomaalida dadka qaarna waxay dhahaan jamhuuriyaddii Soomaaliyeed laakiin magaca aad mar walba arkayso ereyga la adeegsado waxa weeyaan jamhuuriyaddii Soomaaliyeed oo ujeedaduna waxay ahayd jamhuuriyad shanta Soomaaliyeed wada yeelan doonto in la helo tusaalaha ugu yaraan bixin kara waxa weeye buugga jildigiisa lacagta ku qoran waxa ku qoran Somali National Bank bankiga qaranka Soomaaliyeed marka ereyga ugu isticmaalka badan ama u adeegsiga badan marka Soomaalida iyo laga hadlayo Soomaaliyeed waa ereyga Soomaaliyeed qodobka labaad saad sheegtay markii askarta xukunka ay marorsadeen waxay waddanka u bixiyeen Somali Democratic Republic jamhuuriyadda dimuqraadiga Soomaaliyeed waxay ku dareen dimuqraadi laakiin dimuqraadi ma ahayn muhiimaddu waxa weeyaan waxaan isku dayay magac ka wada dhaxayn kara 30 sanaba marka dimuqraadiga haddii lagu darayo haddaan lagu darin baa ilaa nidaam dimuqraadi inuu jirin macna badan ma samaynaysa jamhuuriyadda Soomaaliyeed ayuun bay ahayd ama Soomaaliya buuguna ma diidanayn Soomaaliya lafteeda la adeegsada meelo badan ku adeegsanaya labada magac si isku bedelan karo ama jamhuuriyadda Soomaaliyeed ama qarankii Soomaaliya ama jamhuuriyadda Soomaaliya labadaba uu adeegsanaya runtii laba su'aalood bay ahaayeen su-aashii hore waxaan filayaa inay ahayd sidee baynu uga gaashaama karnaa ama iska ilaalin karnaa faragelinta waddamada shisheeye iyo sidee baynu uga maarmi karnaa sanduuqa lacagta adduunka iyo World Bank su-aasha kale su-aasha dambe haddaan ka jawaabo kolley qofku markuu xanuunsado ee uu xanuun ku dhaco ay difaaci jirkiisu daciifo dee dawo la siiyo oo xanuunka ka kaxaysaa kama maarmaayo oo wax lagu oranayaa dawo qaado haddii jirkaagu aanu isdaweyn karin ama aanu isku filnayn in xanuunka ku haya jirkaagu kaa saaro markaa waddamada maxay ahayd tolay dee dhaqaalahoodu hagaasay ama uu hoos maray heerka ay dowladahoodu kicin laayeen waddamadaas way u nugul yihiin inay u yimaadaan in dawo u qoraan
haddaba dawada amaba gacan ku haynta ama soo gacangalka sanduuqa adduunka iyo wax loo yaqaano banka adduunku ma daweynayaa dhaqaalihii waddanka waa maya waa waxaanad ka maarmayn diidi karayn dhaqaalahaagina aan wanaajinayn ood arkayso marka waxay noqonaysaa isdiidooyin ma garanaysaa ayay yihiin waayo haddaynu anagu World Bank iyo IMF waan ka maarnay institutionska waxa la wadamo waaweyn reer galbeeda oo Mareykanka ugu yahay marka waxay noqonaysaa wadamadii waa kuwa aanad ka maarmi karayn marka dawada ku siiyaan ma diidi kartid nin dhaqtaro aqoon dhaqtar leh haddaad diidana jirkaagii amaba maxay ahayd xanuunkii ay iskama saari karayo marka antibina ku noqotay kol aan xanuunka ka haynayn xumo jabin baa ha noqoto laakiin dawada aad qaadanaysaa xumo jabinta aad u isticmaalaysaa xanuunkii ku hay mid ka weyn ku keenta laga yaabaayo kansar kugu dhaco marka gacan ku haynta iyo faragelinta IMF iyo World Bank inay dhaqaalahaaga ku keentaa bay noqonaysaa waayo tusaalahaan barnaamijka loo yaqaan SAP haddeen eegno marka buuggeenu ka hadlayo marka laga sheekeynayo qolada naqdada oo buug loo yaqaano maxay ahayd The Defied oo nin maxay ahayd toray ku dhashay waddanka Switzerland ee ku xiga South Africa buug loo ayuu ka sheekeynayaa dunidu waxa uu qaybsantay laba qaybood qayb uu bixiyo wax loo yaqaano gloobka waqooyi iyo qolo loo yaqaano gloobka koonfureed marka wuxuu oranayaa dunida gloobka waqooyi waa qoobta qaniyada ah fuqaraduna waxa way koonfurta wuxuu oranayaa adduunyadu inay faqiir iyo u qaybsanto maxaa loo yaqaanaa qani maaha inay keensadeen dadka qaniga ah qaninimada kuwa faqiirkina faqiirnimada laakiinse waxa keentay siyaasad uu reer galbeed dejiyay oo 1944 markii la aasaasayay World Bank iyo IMF-ta lagu aasaasayay maxay ahayd hore Mareykanku la dejiyay taasoo ah guumaysi dhaqaale taasoo barnaamijka SAP u oranaya afar shay buu ku taagan yahay waddanka deyn baa la siinaya marka deyn la siiyo shuruud baa ku xiran afar shay koow waxa la oranayaa shaqaalaha Soomaaliland waa imisa waa 7,000 oo shaqaaliin u badan yahay because budgetkiina 50% wax ku baahan mushaaraad shaqaaliina 10,000 dhima dadkii baa la dhimay way yeeshay mushaarka shaqaaliina waa imisa waa $100 qofkii waa lacag fara badan $50 siiya marka wuxuu leeyahay shaqaalaha la yareynayaa paymentkana waa la yareynayaa sababta loo sameeyo waa maxay in budgetka laga sameeyo surprise diinta la iska bixiyo kharashaadkii dawladda dhan baa la yareynayaa ko haddii waddankii bilaa camal noqday kii shaqeynaya mushaar yar qaatay wax soo saarkii waddanku uu hagaasaya marka deyntii ay ku siiyeen ee shuruudda lahayd dhibaatadaas ay keenaysaa marka waxa weeye waxaanad ka maarmayn diidina karin sidoo kalena aanad maxay ahayd tolay relief kan yar antibinka aad jeclaysanayso marka ma diidi kartid laakiin sawaanad ogaataa inay jirto saas laba wadan baa diiday Burkina Faso 1982 kii madaxweynaha qabsaday 40 jira inqilaab uu ku qabsaday madaxweynihii qabsaday waddankiisa kala bar ka mid ah oo markaas dadkii dhalinyarada ahaa beeraleyda ahaa shaqo u abuuray wuxuu soo saaray wax soo saarkii waddankiisa kala bar ku kordhiyay GDP-giisu waa kordhay dadka shaqaysta way soo kordheen markii uu iska diiday barnaamijka IMF World Bank wadeen laakiin maxay sameeyeen markii arkeen ninkan hadduu sii socdo way asaasineed gareeyeen saaxiibkiisa ag taagnaa way dhaahdeen ninkan waan dilaynaa waan kharajinaynaa adigu waddanka qabso bodyguardkii saaxiibkii baa dilay sidii ku qabsadeen marka aragto buugga loo yaqaan The Defied qaybta loo yaqaan The Regime oo kaga hadlaya inqilaabyada ay sameeyeen ama mu'aamaradaha dhaqaale ee ay sameeyeen wadamada reer galbeedku wuxuu ka sheekeynayaa inta wadan ee madaxweynayaashooda la inqilaabay laba dhacdo adduunka soo marto aad u weyn buu loo shaqeynaa qolo waxa loo yaqaanaa Chicago Boys inamadii waxa loo yaqaan Chicago oo marka loo yaqaano Chile Boys wadanka Chile ayaa dhaqaalihiisu soo kobcay wuxuu diiday fikradda reer galbeedku wataan waxa dhada waddankaas aan u qabsano dhalinyarada waddankiisaas jaamacadda Chicago waa scholarship la siiya center baa laga sameeyay Asian waxa loo yaqaano North South American economy waddanka waxa ka soo baxay dhaqaalayahanadii waddanka Chile u dhashay dhalasho ahaan laakiin fikradda reer galbeed ay misanaa oo ah dad high qualified waddankii marka ku noqdeen madaxweynihii waddanka waxa u noqdeen economic advisors la taliyaa dhaqaale dhammaantood waxay soo jeediyeen talada World Bank iyo IMF in lagu najaxayo tii buu qaatay uu ku dagmay uu quusay waxa kale ku jirta waxa loo yaqaano waxa loo yaqaano waddanka Indonesia waxa loo yaqaano Jakarta gangs bay sameeyeen
marka waxaad arkaysaa mararka qaar waxay adeegsadeen buu odhanaya ninkaa buuggaa ka sheekaynaya hore World Bank iyo IMF markay wadamada qaar soo keli gabayaan inay dhalinyaradooda ilaytka ah ee bright-ka ah waxbarashada ugu sarreeya inta waddanka ka qaadaan in waddanka Mareykanka la siiyo scholarship aqoonta la soo baraa noqota aqoonta dhaqaalaha waddankooda ay ku soo noqdaan institutionska ugu waaweyn waddanka ay qabsadaan iyagoo fikirka dhaqaale waddanka aaminsan kadib ay waddankii u bedelaan fikir u shaqeynaya maslaxadda dhaqaale ee reer galbeedka marka waxaad arkaysaa waa wax aad nin dhaqaalahaaga inuu ku noolaado dooniya lama dagaalami karto kaa cilmi badan kaa aqoon badan meel kasta kaa soo gelaya inaguna waxaan u baahanay dhalinyaro dee waddankeenu scholarship Mareykan hesha laakiinse at the end waa waxay ogtahay in iyagu u shaqeynaya markaad eegto ujeedada loo bixiyo waxa loo yaqaano diplomat scholarship ninkaas ka shaqeynaya buugana kuma jirto marka waxay u baahan tahay dee inaan ogaano World Bank waxyaabo lagu criticize dhowr buuga waa weyn baa lagu naqdiyaa World Bank yaa ma aftada buugaagta akhrido waa dareemaysaa xanuunka ku keenayaan dhaqaalaha waddanka muddada dheer su'aali way soo xidhaynaa barnaamijku inoo dheeraaday gorfayn nagu filan oo bilow waynu helnay waxay sameeynaa waan iska soo xidhaynaa barnaamijka waxaa inala jooga isaguna martaba inagu soo biiray maayir ku-xigeenka caasimadda Khadar Nuur oo barnaamijka inoo soo xidhaya soo dhowo maayir caawa waa habeen aqooneed waa habeen cilmi waxaan ku bogaadinayaa tiimka xafladan bandhigga buugga soo qabaqaabiyey barnaamijkan cilmiga ah aynu baranay xafladaha badan waxaynu ku aragnaa in inta halkan la soo istaago badana laga sheekeeyo taariikh nololeedka qofka buugga qoray badanaana markaa ay noqoto ammaan iyo guuladay fara badan badanaa xafladaha ay ka dhacaan ise caawa buuggan uu ka duwan yahayo waa buug intaynu halkaa fadhinnay cilmi iyo aqoon aynu muxuuha kala tegayno buuggani waa buug anfacaya ubadkeenna iyo ardaydeenna maxaa yeelay afkaagu baad kaga dheegi kartaa cilmiga doonaysa luqaduhu waa fure ee maaha cilmi abwaankii weynaaye Soomaaliyeed waa kii gabayay lahaa afqalaad aqoontu miyaa maya weya marka bilxaqiiqatan jaamacadaha waxaan ku barannaa waxa weeyaan caqabadda ugu weyn ee naga haysataa waa luqadda inaynu baranno waa shay aad iyo aad u muhiima haddana waxaa ka macaan markaad luqaddaada wax ku baratid waa shay ka sii macaan oo ka sii dhadhan wanaagsan Khadar waan ku hambalyeelayaa buuggan iyo buwaagtii hore uu qorayba aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa habeenkii horena anigoo shiciba ayaa xafladda hore kala soo qayb galay caawana mas-uul idinkeedii matalaah ayaan kala soo qayb galnay Khadarna aad iyo aad baan ugu mahad celinayaayo waa dadkaan isku aragtida iyo isku fikirka siyaasiga ah ka nahay xagga dhalinyarta maxaa yeelay dhalinyarteennu hanka siyaasiga uu ku yaryahay waxaanu leenahay oon sheegayaa war dhalinyaray war dalkan idinkaa leh cidda loo taliyaana waa idinka wade odayaasha cidda u taliyaan dee waa dhalinyarta markaa dhalinyarta waxaan leeyahay idinkuna ka soo baxa hankiina soo ballaadhiya dhalinyartana waxaa laga doonayaa markay golayaasha siyaasadda yimaadaan inaanay inaga noqonin yoyoontan iyo dagaal inaga dhexdeenna ah inaynu wax ku soo kordhinnaa waa muhiim iyaduna marka aad iyo aad baan u mahadsan tahay qoraal Khadar waan ku ammaanayaa aqoontii uu bartay inuu qalin inoogu bedelay welibana aynu wax ka baran karno dhaqaaluhuna noloshu hadday dhaqaalo weydo ummaddu hadday dhaqaalo weydo way sugnaysaa iimaanka waxaa ku horeeya dhaqaale rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiis buu sheegay man asbaxa aamina fii sirbihi mucaafan fii jasadihi cindahu quuti yowmihi buu rasuulka calayhi salaatu wasalaam saddexdaa eg oo isku xidhan yihiin qofka isagoo waa barista isagoo nabad qaba isagoo amni ku sugan
وحويا معافى في جسده عافمات قبا عافمات كانوا وطيرك النوشة هو مهم سنة يجي عنده قوت يوم عنده قوت يوم أكتي سنة أي تاو وما نتاع نسمع عن الآن دجاجة الأولين يدمرون هو حتى عنه ولا قاربوه كذا قاربانت ومضى فقر مركز وطنا نبضنا خطر بكتير دول كانوا حالة خطر كتير رتي حق مركز الدنيا إمي كان يظروفها من الرواية السيئة ثانية هذه بخطر سي جرينيا دقالها الدم كنا بكحرية دير إنه دليرتين إنه فكرنا وإنه احتعبنا لبعضنا يستوى حويا تعب كانوا ويا قفل بابو حويا إنه فرق أي دولة قف كستابا فرق كدرنا وسياسيين مركا إنه بيرها بيرنا وإنه احتبعنا والشيء هذه مهمة دقالها الدم تعب كاغا يكحرية الدولة كل جيد وحبسها أي أمد كل جيد وحبسها كم تبتين ومرضو حتى يكون من المدينة أي أمور يكون غطاء أنت أمرك كيما دو أردد الجامعة لها وحكوب بيورونيا ونكولات اللي علمي جاي مرتان إني فعل بدلان علمي جاي بدلان بدلان وحبضان علمي جاي إنه صابرني وحوالي أبليكيشن كيسا إنوية علوم تانو برانا وحلو بديه علوم عن علمي هاينا انتو ذا بدلنا ساينس معها آرتس كان يكون بدلنا ساينس كان إنوية بدلنا إنه سوشيال ساينس كان إنه كير بدل إنه مهم نسين وولي من الحياة ساينس كان مهم أردد روح القرآن اللي لو قلوا بدلاله وهذين حوق الساقة وحبرشدين أساسية حسابته يلقضه آديات مهمته وأدونك كلمة سبو صارين العرس كسار ما لا حسابك كما قنتها انت أبراني سيكون مجرته وحبو والله حسابته مجرته نرشي أن حسابك سريسا إلا الدنيا آخرة بحسابوين دواتها الله انت أمرك كيما دو آديات بان قرى خضر يحل بان ميدانه قدوميها حيك بنجيجا ومعلكيها ومع الخضر التيم كيوم معلم توضب بدنا هاي يستن على صاحبك آدي أنت تكون بهذا عليا دمانتين أرضينا دي أنت كران كيجا أنا وكدولة هاني كل استشهاد ونقابلنا جوابها ونقابلنا خضر ولمن كان عدا الجيسان ستوصل وقول يجيزون إن شاء الله من الكريم محايا لجها معدا الجيسان يدولة الصحيح اللي هو بعد الحياة سنة كان إن شاء الله بإذن الله الكريم ليبريري وهوي الرقالة وقوض الكوب حدونه أيها الله قد السدونة جامعة هرقيسة لعقل لها المليون قارسة يكوب حدون طاها دي الله إراد دولة وسانة كفالة قادة دمانتين مركا إن شاء الله بإذن الله الكريم أنه جامعة هرقيسة وجامعة دي هرقيسة مريعين السيدة مركا انت بواتنا مقالنا جامعة هرقيسة مفيدنا دي الله إراد يا الله السلام عليكم